ciidanka booliska Somaliland ayaa gacanta ku soo dhigay 3 ruux iyo gaari si sharci darro ah uga ganacsanayay xayawaanka caasha barida oo ah nooc ka mid ah xamaaratada yaryar iyadoo arrintan ay noqonayso markii ugu horeysay ee Somaliland lagu arko ugu horeyn waxaa shi jirayd oo gudaha wasaaradda deegaanka ka qabsoomay ka hadlay ciidankii iyo dadweynihii ka howlgalay arrintaasi dalshadeedu waa dambaale ka tirsan saldhiga aalashiina cayayaankan in hor yaalla waa hashalay la caasha barida waxaanu habeen hore ka soo qabanay meesha la yiraahdo xeero iyadoo aanu in muddo aaba daba soconay markii aanu helay warbixinta in laga ganacsado oo caasha bari laga guro halkan la yiraahdo xeero aduu insha Allah habeen hore ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno waa 27 xabo oo caasha bari ah waxa uu xiran marka 3 nin oo warankoodii maxkamadda ka qaaday maanta kullay waa khayraadkii dalka oo la boobayay waxaana aad gacan looga siiyay dadka deegaanka odayaal deegaanka iyo dhalinyaro nagula howlgalay gaadiidkoodii sidaan uu gacanta ugu dhigi lahayn aad gacan looga siiyay aad buu mahadsan yihiin waxaan ku soo qabanay maxay ahayd dadkii dambiilayaasha oo ilaa iyo hadda xiran marka hadda waxaan ugu soo wareejinay wasaaradda deegaanka oo shaqadeedii ay tahay qof kastaana waxa ah in dalkan waa lagu soo duulay maadaama lagu soo duulay waa inuu qof kasta shaqeeyo ama darajahaada ama title-ka sahalaado waxaan mahad u celinayaa wasiirka maxay ahayd deegaanka iyo agaasimahan mahad u celinayaa taliyaha saldhiga waan u mahad celinayaa bacahaas ayaa lagu soo qabtay baabuurtii lagu soo qabtayna way joogaan waxa ka howlgalay baabuur shicib oo dadweynuhu ay leeyihiin oo xaafadahaas dega ayaa ka howlgalay dadka shicibka waxaan leenahay mar kastaba geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland cid kasta oo ka ganacsata xamaaratadan iyo sidoo kale xayawaanka duurjoogta ah qola Soomaalida kamid ah waxay ku mahmaahdaa imrigaaga dheeraada geel dhalayna uu ku tusaa ummadii reer Somaliland dad kamid ah oo iimaanlaanta halkii u dhameysay maraysa oo ka raba inay ka ganacsadaan xayayaankii ugu yaryaaraa ee ka mid ahaa khayraadka waddankeena hore waxaanu u aragnay shabeelle la dhoofinayo hore waxaynu u aragnay oo soo qabanay libaaxiyo waraabayaal markaa maanta waxay maraysaa caashabaridii caashabaridu waxa weeye inkastay tahay cayayaan ama xayawaan aad u yar haddana waxa weeye wax ka mid ah khayraadka waddankeena khayraad kasta oo waddankeena ilaahay ku abuurayna xigmad buu uga jeedaa xigmadaas uga jeedo ilaahay uunbaa og faa'iidooyinkoodana badiba waynu aragnaa cayayaan iyo xayawaan kastaba marka ay meesha ka baxaan ayuunbaa la dareemaa muwaadin kastoo reer Somaliland wasaaradda ha ku soo simo ciidanka nabadgelyada ha ku soo simo cid kasta oo Somaliland ka naxaysa ha ku soo simo gawaadhi baa siday dad baa ka howlgalay dadkii ka howlgalay waxa ay soo qabteen ciidanka nabadgelyada u horeeyo muwaadiniintii Somaliland ee garabkayga taagneed ay ku xigaan waxay soo qabteen baabuur iyo dadkii watay baabuurtii iyo dadkii watay labadaba dadka maxkamad si sharci ah ayaa baabuurtana loola wareegayaa dadkana xabsiga hadba halka ay dastuurka qaranka u ka dhigo ama sharciga halka uu inta uu qiyaaso ama uu siiyo ayay helayaan oo xarig iyo ganaaxa waa Cabdisalaam Axmed Cawad Cabdi Jermani wararka Sahan TV Hargeysa.